kulanti wacan idil ahaantiin meel walba caalamka joogtaan kusoo dhawaada waa mar kale barnaamijkeeni wararka isha sirdoonka qodobada aan maanta kusoo qaadan doonana waxaa kamid ah qaybtii afraad ee afgembiga dhicisoobay ee dalka Turkiga u diyaar garooba barnaamijka oo fidsan sirdoonka MIT ee dalka Turkiga oo dhankiisa olole basaasinimo oo jawaab ah ku qaaday wakaalada sirdoonka Mareykanka ee CIA-da in aynu ogaano nooca xiriir ee Israa'iil iyo sirdoonka Mareykanka ama guud ahaan reer galbeedku la leeyihiin taliya xaqaan fidaan waxa ay macno u leedahay fahamka waxa dhacay 15 July iyo sababta uu calanka ugu siday badbaadada kursiga madaxweyne Erdogan xaqaan fidaan kuma uu koobnay sirdoonka iyo militariga dibadda balse waxa uu marar badan kaalin ku yeeshay siyaasadda dibadda qudheeda waxaana inta uu dheer yahay kaga badiyay qaar badan oo kamid ah rag ay ishayeen gudaha iyo dibadda Turkiga labadaba laakiin dhinaca kalena waa sababta kamid ah sababaha colaadda daran uu uga kasbaday Israa'iil iyo saaxiibadeed arrimaha siyaasadda ee lagu dhex arkay waxa ugu mudan ka dhex muuqashada qadiyadda Falastiiniyiinta iyo loolanka Carabta iyo Israa'iil waxa Israa'iil ilaawi kari weyday doorka uu ku lahaa markabkii caawinaadda siday ee la baxay markabka xorriyadda oo ahaa markab Turkish ah oo ay saarayeen dad nabadda u ololeeya oo Turkish u badan kuna socday magaalada Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta si uu u jebiyo xayiraadda adag ee Israa'iil dhinac kasta ka saartay daanta galbeed qadiyadaasi caanka ahayd ee markabkan marmaris sida ay ku dhamaatay waxay aad uga xanuun badneed Israa'iil oo ku qasbanaatay in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu raaligelin rasmi ah ka siiyo dadka iyo dowladda Turkiga weerarkaasi dhiiga badan ku daatay isla markaana uu magdhow siiyo ehelada dadkaasi waxyeeloobay Israa'iil marka hore waxa ay si bareer ah u weerartay markabka iyo dadka saaraa waxaase ay filaysay in jawaabta Turkiga ay ka qaboobaan doonto sida ay markaan dambe noqotay waayo arrimaha ma ay doonaynin in ay goyso xiriirka Turkiga oo dano badan ay ku qabtay waxaa caddaatay in dhamaadkaasi dhirbaaxada siyaasiga ah iyo wajigabaxa diblomaasiyadeed ku riday Israa'iil cidda ugu badan ee ka shaqeysay ama talada la garab taagneed madaxweyne Erdogan ay tahay xaqaan fidaan waana sababta mar Israa'iil si cad weerar afka ah ugu qaaday agaasimaha wakaalada sirdoonka Turkiga ee MIT-da xaqaan fidaan oo ay ku eedeysay ninka marka horeba iska lahaa fikirka markabkaasi iyo qorshaha uu ku socdayba si uu Israa'iil dabin ugu rido dowladda Turkigu shilkii markabkaasi inkastoo ay dad kaga dhinteen haddana waxa ay ku heshay laba faa'iido oo miisaan xoogan leh waa ta hore waxaa si xoog badan u soo noqotay sumcaddii uu Turkigu ku dhex lahaa shucuubta Carabta iyo Muslimiinta oo markaasi aan weli dibnahoodu isku dhicin farxaddii ay ka qaadeen go'aankii caanka ahaa ee uu madaxweyne Erdogan ka qaatay markii uu sanadkii 2009 ka qayb galay kulankii golaha dhaqaalaha adduunka kadib markii uu diiday in uu la fadhiisto oo dood ay wadaagaan madaxweynihii Israa'iil ee xilligaasi Shimon Peres oo ku eedeeyay in uu caruurta iyo birmageydada Falastiiniyiinta gumaado Erdogan waxa uu isu dhigay in uu noqon karo waardiyaha danaha Muslimiinta iyo Carabtaba mar kale oo siyaasiga mutacallimka ah Ahmed Daoud Ogle xilli uu ra'iisul wasaare ahaa u jawaabay Israa'iil oo xadgudub kula kacday masjidka barakeysan ee Al-Aqsa shirka jaraa'id waxa uu ku qabtay xarunta taliska sirdoonka Turkiga ee MIT waxa aana goobjoog ka ahaa warbaahinta ka dhex muuqday xaqaan fidaan iyada oo uu ahaa shirkii noocii ugu horeeyay ee uu warbaahinta ka soo hor istaago agaasimaha sirdoonka MIT in xaqaan fidaan lagu arko isaga oo hareer taagan Daoud Ogle oo ka hadlaya xiriirka sirdoon ee dalka Turkiga uu la leeyahay dowladaha dunida iyo arrinta Israa'iil khuseysay qolyaha siyaasadda falanqeeya waxa ay markiiba ku macneeyeen in ay ahayd fariin cad oo ku socota Israa'iil oo iyadu horeba xaqaan ugu tirisay in uu ka mid yahay cadowga ugu weyn uguna khatarta badan ee gobolka la joogo waxa aanay Israa'iil dhacdadaasi u fahamtay hanjabaad Turkigu ugu hanjabayo ninka ay ka xajiimooto dib u habayntii sirdoonka xaqaan ku sameeyay sida ku cad warbaahinada kala duwan ee aynu ku saleynay xogtan xaqaan waxa uu ku guuleystay in uu dib u habayn iyo casriyeyn aad u tayo badan ku sameeyo sirdoonka Turkiga oo markii hore yimid habac badani uu ka jiray aad u kala daadsanaa isla markaana khilaaf iyo loolan adag ka dhex jiray
waxa aanu gaarsiiyey heerka ay maanta joogto oo lagu tiriyo mid ka mid ah sirdoonada ugu awoodda badan dunida oo dhan. Laakiin horumarka iyo dhismaha uu wakaaladdan ku sameeyey waxa ugu bareeray cadow badan oo dibadda ah, Israa'iil iyo Maraykanka ugu horeeyaan, iyo mid gudaha ah oo ka imaanaya shakhsiyaad iyo ururo u badan kooxaha maafiyada iyo ganacsatada kontarobaanka oo u arkaya in danahoodii shakhsiga ahaa iyo dilaalkii hubka iyo daroogada ee wakaaladda Hakaan hortii caanka ku ahayd ay meesha ka baxayaan. Hakaan oo dabcan xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee Erdogan xubin ka ah, waxa uu soo dejiyey qorshe si loo qaadan waayey uu uga dhaadhiciyey Rajab Tayyip Erdogan oo ahaa in uu dhammaan wakaaladda sirdoonka iyo arrimaha amniga dibadda ka shaqeeya la hoos keeno sirdoonka guud ee qaranka oo ah wakaaladda uu isagu maamulayay. Taas oo sababtay in dhammaan wakaaladda sirdoonka dibadda iyo amniga iyo sirdoonka militariga ay gacantiisa hoos yimaadaan. Waxa aanay arrintan mar kale ka sii careysiisay Israa'iil iyo reer galbeedka oo iskaashi dhinac militari iyo amni ah oo aad u adag la leh Turkiga. Waxa kale oo tallaabadan aad uga xumaaday generaalada awoodda badan ee Turkiga oo dowladda ka hor iyagu ahaa cidda ereyga ugu dambeeya ku leh talada masiirka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee dalka, si dadbanna u go'aamin jiray xiriirka dibadda. Inkasta oo xiriir adag oo kalsooni badan ku dhisnaa ay sameysteen Erdogan iyo Hakaan Fidan, haddana waxaa Erdogan u qaadan waa ku noqotay sanadkii 2015 markii Hakaan uu si kadis ah isaga casilay agaasimaha awoodda badnaa ee sirdoonka si uu ugu sii bayro dhinaca siyaasadda oo uu doonayay in uu isu sharaxo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalweynaha Turkiga. Arrintan Erdogan aad ayaa uga goos adeegay, sida uu uga xumaadayna maba uu qarsan. Hadallada uu ka yirina waxaa ka mid ahaa mid uu ku sheegay in sababta uu xilkan ugu magacaabay ay tahay in uu ku qanacsanaa kartidiisa iyo sida uu ugu habboon yahay in uu wakaaladda si awood iyo qadarin leh u maamulo. Erdogan waxa uu si cad u sheegay in Hakaan ay tahay in aanu ka tegin wakaaladda oo aanu siyaasadda doonan. Dadkii xilligaasi xogogaalka ahaa iyo dadka siyaasadda Turkiga gorfeeya waxa ay berigaa sheegeen in isku dhejinta Erdogan uu sii dayn la yahay Hakaan ay muujinayso sida aanu uga maarmi karin ninkaasi, gaar ahaan dhinaca amniga iyo xasilinta dalka. Ugu yaraan waqtigaasi la joogay oo ay jireen khataro ka imaanayay dagaalada joogtada ah ee Turkigu kula jiray xisbiga shaqaalaha Kurdiyiinta, loolanka u dhexeeyay xukuumadda Erdogan iyo jaamacadda ay colka yihiin ee adeeg. Erdogan oo xilligaasi qarsan kari waayay jacaylka uu u qabo in Hakaan uu xilka sirdoonka sii hayo, hadalladii uu yiri waxaa kale oo ka mid ahaa: haddii wakaaladda sirdoonka dowladdu ay daciif noqoto, suurtagal noqon mayso in dowladdu si adag cagaheeda isugu taagto. Isaga oo qiranaya culayska baahida uu shaqada ninkan uu u qabana, waxa uu yiri: aniga ayaa magacaabay, waxa aanan ka rabaa in uu xilka hayo oo isaga oo aan iga fasax qaadan aanu isaga tegin xilka. Hakaan oo lagu tilmaamo nin degan oo aan jeclayn in warbaahinta uu aad uga muuqdaa, waa uu ka sii madax adeegi kari waayay calaacalka saaxiibkiisa ku fara adeegay ee Erdogan bilo yar kadib iscasilaadiisa oo aanu Erdogan weli aqbalin. Mar kale ayaa uu ku soo noqday xilkiisii sirdoonka MIT. Warbaahinta Turkiga ayaana faallooyin ay ka bixisay soo noqoshadiisa ninkan waxa ay ku sheegtay in uu fahmay muhiimadda ay leedahay kaalinta uu dowladda ku lahaa iyo in uu ku baraarugay in dagaalkii uu kula jiray kooxda xisbiga ishaya ee adeeg aanu weli dhammaanin. Inkasta oo aynu horey u soo xusnay in dareen shakhsi leh ay Israa'iil, Maraykanka iyo dalal kale oo reer galbeed ahi ku qaabilaan Hakaan Fidan, haddana runtu waxa ay tahay in ugu dambeyntii ay qasab ku noqotay in lala shaqeeyo, maadaama oo aan la dhaafi karin kaalinta sirdoonka Turkiga iyo guud ahaan siyaasadda dalkaasi ku leeyahay Bariga Dhexe iyo muhiimadiisa istiraatiijiga ah, iyo sidoo kale doorka firfircoon ee Turkigu ku leeyahay gaashaanbuurta NATO. Waxyaabaha ayaan dhinacyada ku qasbaya in ay la shaqayntiisa sii wadaan, xitaa mararka qaarkood u hadlaan si in ay ku qanceen Hakaan. Mararka aynu hoos ugu sii dhacno, waxaa ka mid ah shaqooyinka yaabka leh ee sirdoonka Turkiga oo uu Hakaan hogaamiyaa,
ay ka wadaan gobolka. Tusaale ahaan, Hakan Fidan waxaa lagu tilmaamaa in uu yahay ninka iska lahaa fikirka ah in xaalka kaliya ee Suuriya lagu dhameeyo uu yahay in hubka casriga ah la siiyo mucaaradka qoonyor socodka lagu tilmaamo ee Suuriya. Fikirkaas oo inkasta oo aanu sidii la rabay u shaqayn, haddana la aaminsan yahay in uu si weyn u daciifiyey awoodda taliska Bashar al-Assad, reer galbeedkuna u arkeen in uu yahay fikir shaqayn kara. Hakan Fidan oo sida muuqata ka duulaya aragtida uu bilowgiiba ku saleeyay dib u habeynta sirdoonka Turkiga ee ahayd in sirdoonadii tirada badnaa ee Turkiga lagu soo koobo laba u dhisan qaabka sirdoonka Mareykanka ah, in wakaalada gaar u ah arrimaha gudaha, amniga iyo dembi baarista, wakaalada kale oo ah tan uu isagu hogaamiyo la mid noqoto wakaalada CIA ee Mareykanka oo iyadu loo daba fadhiisto arrimaha dibadda. Waxaa ka dhashay sababtii uu bilowgii sidaasi u yeelay oo ah in wakaalada kaliya oo sirdoonka ay keenayso in la xoojiyo joogidda sirdoonka Turkigu ku leeyahay gobolada colaadaha iyo xiisadaha siyaasiga ah ka jiraan, sida Bariga Dhexe, dalalka deriska la ah Turkiga, Ruushka, gobolka Qowqaas, guud ahaan qaaradda Asia, qaaradda Afrika iyo xitaa labada Ameerika, Yurub iyo Israa'iil, lana hirgeliyo baahiyaha Turkiga ee ka imaanaya koritaanka dalkaasi samaynayo. Hakan Fidan oo marka ay shaqadiisu noqoto ah nin dhiiran oo go'aamo cadcad aragtidiisa hubeynta mucaaradka Suuriya, fikirkuma uu dayn ee durbadiiba sanadkii 2011 waxa uu bilaabay in uu xoojiyo awoodda militari ee mucaaradka Suuriya, isaga oo ogolaaday in hubka, lacagta iyo caawimaadda sahayda militariga ee u socota mucaaradka ay maraan dalkiisa si ay uga gudbaan xuduudda uu la leeyahay dalka Suuriya. Aragtida Hakan Fidan ee u janjeedha dhinaca islaami siyaasi ah waxay aad u soo baxday xilligii ay socdeen kacdoonkii Guga Carabta oo la aaminsan yahay in uu si aad ah u ballaariyay shaqadii sirdoonka Turkiga ka qabanayay guud ahaan Bariga Dhexe, gaar ahaan dalalka uu ka dhacayay kacdoonka Carabtu. Sida ay warbixinada ay sheegeen, reer galbeedka iyo Israa'iil waxa ay dareensan yihiin in Hakan Fidan uu yahay nin ku socda aragtida ah in danta koowaad ee u dhowra ay tahay siyaasadda guud ee Turkiga. Waxa aanu Mareykanku si gaar ah u aaminsan yahay in ninkani uu dhismaha iyo dib u habeynta sirdoonka Turkiga ku saleeyay siyaasadda iyo ajendayaasha uu madaxweynihiisa saaxiibka yihiin ee Erdogan ka leeyahay siyaasadda dibadda Turkiga. Waxaase ay haddana Mareykanka iyo dalalka kaleba ku qasban yihiin in ay la shaqeeyaan, iyaga oo markan inta ay ka soo guureen aragtidii ay ku shaqayn jireen ee ahayd in iyaga loo shaqeeyo, ku socda aragti ah in ficilada iyo shaqada Hakan Fidan aanay iyaga danahooda iyo kaalinta ay ku leeyihiin siyaasadda dibadda dhaawicin. Waxaase haddana aan la ilaawi karin xiisadda xiddigan soo ifbaxaya uu bartilmaameedka ay isha ku hayaan ugu noqday dalalka aynu soo xusnay, iyaga oo mararka qaarna qarsan kari waaya sheegidda in ay waxyaabo badan ku kala aragti duwan yihiin, sida laga soo xigtay mas-uul sare oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka ah oo isagu ka hadlay kala duwanaanshaha dhinaca aragtiyaha ah ee iyaga iyo Hakan u dhexeeya. Waxa uu yidhi, isku muraayad kuma eegno dunida. James Jeffrey oo ah diblomaasi sare oo Mareykan ah, danjarana ka soo noqday dalalka Turkiga iyo Ciraaq, ayaa qudhiisu mar uu ka hadlay Hakan Fidan waxa uu uga hadlay si togan, balse aanu qarin xaqiiqada dareenka uu Mareykanku ku eegayo. Waxa aana hadaladiisi ka mid ahaa, Fidan waa wejiga cusub ee Bariga Dhexe, isaga oo intaasi ku sii daray, waxa aanu ku qasbannahay in aanu la shaqayno, waayo waa nin karti u leh in uu shaqadiisa dhammaystiro. Waxaase waajib ah in aanan u arag in uu yahay saaxiibka doqonka ah ee Mareykanka, waayo sidaasi ma aha. Haddaba Hakan Fidan oo horeyba ay dad badani ugu sheegeen in uu yahay shakhsi ku habboon xilka uu madaxweyne Erdogan u dhiibay, isla markaana ku tilmaamay sir ilaaliyihiisa, ayaa mar labaad dunida u sheegay in uu yahay nin taariikhda bog ku leh markii 15 Juulaay sanadkii 2016 ku guuleystay in uu xirfadiisa yaab kale ku fashiliyo afgembigii uu saacado yar ka hor fulintiisa ka war helay. Waxa aana mar kale dadka Turkiga iyo dunida kale ee nacabka iyo nasteexada u sheegay in uu qalmo magaca uu
ku kasbaday dhismaha amniga iyo sirdoonka dibadda Turkiga. waxaana laga sameeyay filim cajiib ah oo loogu magac daray Dooxadiyeyda. filimkaasi waxa uu ka hadlayaa sirdoonka dalka Turkiga iyo siyaasadda Turkiga iyo isla hakaan qudhiisaba, waxaana lagu turjumay luqado